بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات الله وسلام عليه وبعده. waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay Soomaali meel walba ay joogaan iyo dhammaan cidda ku xiran channelkayga. insha Allah caawa waxaan rabaa barnaamijyada aad iga codsateen inaan insha Allah maanta tafaasiil dheeri aan ka bixiyo. mawduucan isbuuca mawduuci la qaato wuxuu ahaa Islamic banking and finance iyo sida ay u shaqeeyaan bangiyadan Islaamka oo insha Allah rabna inaan tafaasiil iyo hordhac aan ka bixino. kelibiyada kalena insha Allah iyagoo dhammaystiran aan ku soo bandhigi doono. caawa insha Allah waxaan rabnaa inaan 4 qodob aynu diiradda saarno. qodobka koowaad waa maxay Islamic banking iyo waa maxay banking iyo sida uu shaqeeyo. qodobka koowaad aan ku bandhigi doono. qodobkeena labaad bishariica al-islaamiyya iyo ahkaamta shariicada islaamka oo ku dabaqo oo Islamic banking oo u yahay basically value of area inaan ka qiimeyno. qodobka labaad. qodobka saddexaad inaynu tafaasiil dheeri ka bixino historical halka uu ka soo bilowdo taariikh ahaan iyo maraatibta uu soo maray bangiyada islaamka. sidoo kale qodobka afraad inaynu isbarbar dhigno nidaamka bangiyada islaamka iyo kuwa ribowiga ah oo commercial bankiga iyo waxay ku kala duwan yihiin. insha Allah qodobka koowaad anagoo waqtigana aad u ilaalinayna. qodobka koowaad waa maxay banking. banking waxa ku qeexi karnaa waa institution maamula dhaqaalaha lacagta in deposit la dhigto in deyn uu bixiyo inuu mashaariic horumarineed uu investment ku sameeyo. waxyaalahaas oo dhan waxa loogu talagalay function of banking weeye. si kale si guud hadaynu u fiirino waa maxay Islamic banking ama bangiyada islaamka waa maxay. waxaan oran karnaa horta Islamic banking waa bangi commercial oo ganacsi ah kaasoo dhammaan adeegyada uu bixiyo iyo kuwa ganacsiga ah oo waafaqsan ahkaamta iyo mabaadi'da shariicada islaamka waxaan ku qeexi karnaa Islamic banking marka aynu ka waramayno. Islamic banking nidaamkiisa iyo tafaasiisha guud waa ka waranay. waxaan rabnaa qodobkeeni labaad inaynu u gadagalno oo ahaa bayska bishariica al-islaamiyya waxa ay ka qabto waxyaalaha ganacsiga marka la joogo xaaraanta ka ah iyo waxyaalaha proposalka inaan si guud uga warano. sidaan wada ogsoognahay shariicada islaamku componentiga waxay ka kooban tahay waa 3 qaybood. qodobka koowaad caqiidada iyo tawxiidka. qodobka kale fiqiga iyo qodobka saddexaad oo akhlaaqiyaadka. saddexdaas bay componentiga bishariica al-islaamiyya ku dhisan tahay. caqiidadu waa tawxiidkii al-iimaan billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi in kutubta iyo rususha iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la rumeeyo waa caqiidadii. fiqiga waxaan ku qeexi karnaa oo asagu activity aan oran karnaa oo waxa loo kala qaadayaa cibaadad iyo mucaamalaad. cibaadadku waa waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala xiriirka bini aadanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka dhaxeeya sida salaada soonka iyo waxyaalaha la midka oo kale. akhlaaqiyadkuna waxyaalaha asaaska u ah markay ka qiimeynayno islaamka. waxaana fiqiga labada aynu u kala qaadnay qodobkii ahaa mucaamalaadka ayaa wuxuu u kala baxayaa 3 qaybood. wuxuu kala baxayaa political iyo social iyo economic. saddexdaas loo kala qaadaya marka aynu joogno mucaamalaadka. mucaamalaadku waxa weeye dadka marka economiga laga waramayo waxa la yiraahdaa geographical area dadka meel wada dega oo mucaamalaadku isdhexmaro marka economiga lagu qiimeynayo ayaa waxa la yiraahdaa economical area geographically marka aynu fiirino. mucaamalaadku saddexdaas buu kala baxaa. qaybta economiga ah oo Islamic banking uu la xiriiro ayaan rabnaa inaynu diiradda saarno. economiga sidaan la socono wuxuu kala baxaa bangiyada marka la joogo commercial iyo wax la yiraahdo charitable. commercialku waa kuwa ganacsiga waxa soo galaya trade-kii waxa soo galaya bangiyadii waxa soo galaya finance-gii waxyaalahaas oo dhan la waa commercial ganacsiga oo dhan bay soo galayaan. charitable-na afka carabiga markaynu fiirino ama luqadda waxa la yiraahdaa qardu xasana oo waxa soo galaya zakadii waxa soo galaya waxyaalihii la oran jiray sadaqaadkii iyo waxyaalihii la midka ahaa. qardu xasana waxa way waxyaalaha ka madax banaan oo aan soo gali karin interestiga
tusaale in qof ku yiri oo kale $100 baan u baahanahay, $100 asbuuc gudihiis baan ku siinayaa, $100 oo kaliya dib kugu soo celiya qardu xasana la yiraahdo oo wax riba asaga lama socoto. intaas waa basically of shareeca marka aynu ka qiimeeyno. sourciga shareecada xagee laga qaataa? number 1 waxa uu quraanka, number 2 na waxa uu sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam, number 3 waxa weeye ijmaaca, waxyaalaha isku raacsan yihiin culimadu oo aan ku jirin marka laga waayo quraanka iyo sunnada nabiga, waxay culimadu isku raacaan ba ijmaac la yiraahdo. number 4 qiyaasku inta badan waxa adeegsada culimada oo marka quraankii iyo sunnadii laga waayo ayaa waxa lagu qiyaasaya wax markaa jiray oo waxa weeyaan la isticmaali jiray. haddaba sharciyada islaamka marka ganacsiga la joogo bangiyada maxaa xaraan ka ah, maxaa xalaal ka ah, oo qodob aan u baahnaa inaan aad u taxliilino. waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka noogu sheegay waxa kamid ah number 1 interestiga ribada. ribada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay waa xaraan. ribadu macnaheedu waxa weeye inaad dul saarato shayga, tusaale lacag baa qof waxa weeyaan ku weydiistay مثلا $100 oo kale, $100 markaas waxa tir asbuuc gudihiis $100 iigu soo celi, adigoo ii soo celinaya kunkaygii oo 500 iigu daray 1500, 500 baa waxay ku noqonaysaa ribo bisharaaca islaamiga marka la fiireyna waa xaraan. number 2 waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaraanimo waxa kamid ah qararka, in qofku shayga uusan aqoon ama waxa uusan weligii arag uu gato, waxyaalahaas oo kale xaraan bi ka tahay. number 3 waxa kamid ah gambling-ka, khamaarka, waxyaalaha la ciyaaro oo ribada ah oo soo galaysa. waxa kale oo number 4 kamid ah fraudka, xatooyada. waxa kale oo kamid ah barbartan, waxa la yiraahdaa rishwada, laaluushka, dhaca, boobka, waxyaalahaas oo dhan bisharaaca islaamiga oo la xaraantinimay. intaas waxay hayeen si guud bisharaaca islaamiga marka bank islaami aanu ka waramayno. waxa rabnaa inaanu historical taariikh ahaan aanu ka warano xagga uu ka soo bilowday islaamiga bankiga iyo maraatibtii iyo maraaxisha uu soo maray. bank islaamu wuxuu soo bilowday ama bankiga ugu horeeyay oo la furaa waxa la furay 1973 waxa laga furay dalka Masar magaalo la yiraahdo Multo Qamar. nasiib daro wuxuu shaqeynayay bankiga islaamka ah sanadii 8 bilood, waxaana manager ka ahaa doctorkii Yasin al-Fadil nin la oran jiray. dabadeed sanadii 8 bilood kadib bankiga ugu horeeyay oo islaam ah oo nidaamka iyo ahkaamta shariicada dabakha Multo Qamar laga furay. dabadeed sanadii 8 bilood kadib waxa loo xiray arrimo siyaasadeed oo waaga waxa adduunka gacan weyn ku lahaa nidaamka shuuciga oo saameyn weyn ku lahaa. dabadeed 1975 waxa dib loo furay bangigii ugu weynaa oo hadda bangiyada islaamka ugu weyn, bangiga Dubai oo hadda bangiyada islaamka ugu weyn uu ka mid yahay. sidoo kale 78 ilaa 79 waxa la furay bangiyada Bahrain iyo Kuwait iyo kuwii Suudaan. waagaas hanaqaaday oo islaamiga bangiga ayaa waxa u suurta gashay in dadku ay waxa weeyaan aysan ku soo habaabin nidaamkan islaamiga dhaqaalaha. sidoo kale waagaas waxyaalihii socday oo programka oo lagu kicinayay maadaama bil xadaara islaamka markuu burburay dib u soo laabtay, waxa sidoo kale barbar socday siyaasadihii wadamada islaamka ahayd oo shirka ugu horeeyay Senegal laga qabtay 1970 iyo 4 lagu baraarujinayay wasiirada islaamka ah inay ay dibgeliyaan oo ay dardargeliyaan in laga furo waxa weeye bangiyada islaamka wadamada islaamka. sidoo kale shirkii labaad waa tii Pakistan lagu qabtay Dar es Salaam, kii ugu dambeeyay waa tii Sacuudiga lagu qabtay oo dhammaan adduun weynaha oo dhan lagaga shaqaaleysiiyay. sidaan wada la socono 57 sano kadib maxaa bangiyada islaamka u suurta gashay oo maanta la oran karaa way qabteen. ihsaasiyaad la sameeyay waxa la ogaaday bangiyada islaamka inuu maanta ka badan yahay ilaa 2000 oo bangi oo islaam ah oo ilaa 120 dal ay ka shaqeeyaan, ay maamulaan lacag 10 trilyan kor u dhaafaysa. sidoo kale customerna ay u hayaan macaamiil
ilaa dhowr iyo 20 bilyan oo dad ah oo mujtamaca oo adduunka ku nool ah. Waxaan oran karnaa sanadkii hadda u dambeeyay bacdal corona markuu dhacay, Islamic bankigu wuxuu ku jiray bangiyadii ugu fiicnaa oo profit-kii iyo waxyaalihii ugu badnaa sanadkii hadda u dambeeyay 2020 ilaa 135 profit boqolkiiba ay faa'iideen. Halka bangiyadii kale oo ribowiga ahaa kuwa ay bank draft ay ku sameeyeen ay kaceen, kuwa waxa weeyaan dawladdu ay kabtay, kuwa waxa weey dawladuhu ay la wareegeen, kuwana ay isxireen. walidaalika waxaan is oran karnaa fadliga iyo bisharaaca islaamiga marka la fiiriyo bangiyada islaamka waqti xaadirkan waxay ku jiraan bangiyada ugu sareeya oo adduunka aad looga isticmaalo. daraasadii ugu dambeeyay la sameeyay jaamacadii Oxford waxyaalihii oo dhan oo ay sameeyeen makaatib lagu baaro oo research lagu sameeyo qaababka Islamic bankigu ay ku shaqeeyaan iyo sida ay loo darso, iyagana waxa weey waxyaalaha hadda u dambeeyay oo laga howlgalay ku jira. qodobkeena u dambeeyay oo aan ku jirno qodobka afraad oo maxay ku kala duwan yihiin Islamic banking and commercial banking. Islamic bankiga iyo kuwa ribowiga ah waxyaalaha ku kala duwan yihiin. Si guud haddaan ujeedada koowaad ama qodobka koowaad aynu qiimeeyno, qodobka koowaad waxa weeye bangiyada islaamku waxay qiimeeyaan wax la yiraahdo profit and loss, halka kuwa kale ay rabaan mar walba to interest ay ribo bixiyaan. sidoo kale bangiyada islaamka wax riba iyagu ma bixiyaan oo waxa weeyaan bisharaaca islaamiga markaynu ka soo waramayno qodobkii labaad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xagga mamnuuc ka yahay. sidoo kale Islamic bankigu wuxuu bixiyaa investmentigaasuna qayb buu ka yahay sababtoo ah mashruuc walba uu maal gelinayo bankiga islaamigu profit and loss buu ku xisaabtamaya, waayo haday faa'iidana uu la faa'iidaya, haday khasaarana waa la khasaaraya, halka kuwa kale ay deyn bixiyaan oo kaliya wax khasaara iyo faa'iidaduna ay dadka qabaan oo kaliya. inta badan bangiyada islaamigu wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo investment, in dadka lagu sameeyo loo maalgeliyo mashaariic horumarineed oo waxa weey dadka iyo deegaanka iyo dhulkaba waxa weeyaan u leh anfac iyo faa'iido u leh. halka kuwa kale ay u fiiriyaan deynta marka ay qiimeynayaan ay leeyihiin qofkan deymo hore miyaa ku soo go'ay ma baarowba iyo waxyaalo la mid ah. waxaan oran karaa afarta qodob waa si hordhaca oo guud oo aan ku qiimeynaynay bangiyada islaamka iyo qaabka u shaqeeyaan. waxaan rabnaa insha Allah barnaamijyadeena ku xiga inaynu ka warrano mabaadi'da islaamka iyo qaabka bangiyada islaamka u shaqeeyaan, waxyaalahan musharakooyinka iyo muraabaxa waxa la yiraahdo, mustaqbalka dambe soo noqon doono bangiyada islaamka iyo waxyaalo intaas in ka badan ba insha Allah ku soo bandhigi doono haddii Allah idmo. caawa casharkeennii iyo wixii aan soo diyaariyay oo dadaal iyo juhdi ah caawa intaas ku eg yahay. waxaan rabaa insha Allah dhammaan walaalahay halkan ka daawanaya inaan aad ugu mahad celiyo kun jeer waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.